السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتو كحران channel كي بيتش عبد الله هنا السجاي واحد كوزو دواتان تنس كيني هاي present continuous tennis عشر كي جواد قيبتي إنجليش كأنا كوار لنا present continuous tennis أيام ما أنت وهاد لنا دعوة وقت حاضر صعنا يسا it's suited for waxaa loo isticmaalaa an action dhacdo taasoo is happening dhacaysa at the time of speaking xilliga la hadlayo aan kugu soo celsho it's used for waxaa loo isticmaalaa an action dhacdo taasoo happening dhacaysa goormay dhacaysa at the time of speaking ama is happening now hadda ayay dhacaysa it's happening now waa dhihi kartaa ama maxaa dhihi kartaa is happening now waa ku darsan kartaa now ama waxaad dhahan kartaa darabtid at the time of speaking waxay dhacaysaa xilliga la hadlayo at the time of speaking xilliga la hadlayo ayuu dhacayaa formula ama qaacidada ama astaanta lagu yaqaano waa subject oo ah falsameeye am is are oo loo yaqaano hv maxaa laga wadaa falcaawiye helping verb plus verb or main verb kai plus ing plus object subject markaa keentid waa meesha hadalka oo ka bilowda ama falsameeya saddexdan am is are ama is am are midkood waa inaa keenta helping verb haye verb oo ah falki socday ama falka meeshaas laga geysanayay iyo ing socodka continuouska iyo objectiga meesha hadalka ku dhacay okay ay waxay qaadataa am ayay qaadataa you we they waxay qaataan are she he idna is ayay qaataan ay waxay qaadataa am you we they she he you we they are ayay qaataan intay kuga caddahay she he idna waxay qaataan is okay aan u gudubna qaybteena xigta exampleski meesha statement yaa ku cadda oo hadal caadi ah he is speaking English as English ayuu ku hadlooyaa waa wax hadda dhacaya you are working hard today maanta waxaad u shaqaynaysaa si adag waa jumlada taas jumladan waxaa lagu dhahay he is speaking English asiga English ayuu ku hadlayaa haye you are working hard today adiga waxaad u shaqaynaysaa si adag su'aal ka dhig marka qaybta question is game is he speaking English miyuu ku hadlooyaa are you working hard today ma waxaad u shaqaynaysaa si adag he negative kimaad oo diidmada ah he is not speaking English as English kuma hadlay you are not working hard today maanta si adag uma shaqaynaysid you are not working hard today adiga si adag uma shaqaynaysid negative situation waa inaan su'aal diidmeed isn't he speaking English asiga English kuma hadlay miya hadda muku hadlooyo miya macna waa hadda wax la sameeyahay oo su'aal diidmeed ah aren't you working hard today maanta si adag uma shaqaynaysid miya su'aalaha noocan ah waxaa loo yaqaanaa yes or no waa negative with question yes or no jawaabteedana okay qaybta xigta aan galna ayadana qaybta xigto aan u gudubno qaybta xigta waxaa lagu baranayaa waa presentiga isla present continuous tenniska laakiin farqiga u dhaxeeyo kaas wuxuu ahay wax dhacaya hadda uu ahay kan laakiin maxaa waaye waa near future ama immediate future oo ah immediate future ka waaye also it is also used present continuous tense waqti xaadir dhacdo waqti xaadir soconaysa is also used xitaa waxaa loo isticmaalaa to refer in lagu tixraaco maxaa lagu tixraacaa for near future mustaqbalka dhow tusaale galabtaan rabaa ama caawaan rabaa waxaasoo kale ayaa u isticmaali karta example iskiisa ka garanaya example tusaale the teacher is macallimiinta are going to hold waxay qaban doonaan waa a graduation ceremony tomorrow berito marka kor ka fiirisa jumladu waa present continuous tense qaabkaas ay u dhisan tahay laakiin qaabka macnaheeda ayaa waxaa noqon doona future ujeeda the teacher is macallimiinta are going to hold waxay qaban doonaan ereyga hold waa qabasho a graduation ceremony tomorrow berito ayay qaban doonaan okay Ali is leaving jumladan labaad Ali is leaving from Nairobi tonight Ali wuxuu caawa ka imaanaya Nairobi ayuu ka imaanaya waa present continuous tense taqaanay kaliya la muujiyo time
kaliya waxaa la muujiyey time ayaa la muujiyey. Are you going to play football tomorrow? Berito ma waxaad ciyaaraysaa banooni? Are you going to play football tomorrow? Okay, qaybtan waxaan uga hadlaynaa jumladda ugu dambeysa oo ah are you going to play football tomorrow? Beri ma waxaad ciyaari doontaa banooni? Ma waxaad u socotaa inaad ciyaarto banooni berito lama dhahayo, iska ilaali. Going to be going waxa la jirto be going waa it means will qaab future loo isticmaalo. Hadda aragto be going inta la keenay sidaan waa aragtaa, waxaa aragtaa ara la keenay going to way isla socotaa. Kadibna waxaa la keeni doonaa infinite ama wax macnaha waxaa laga wadaa indefinite oo ah wixii gadaal ka maraa la meeshaan. qaybtaas u jeedi verbka ilaa jumlada wax badan ka mari karto. marka halahan ayaa waxa la isku dhahaa be going to la isku dhahaa. qaybtaas ugu horeyso qaybtan arta ilaa toodaas ayaa waxa loo yaqaan be going to. marka rabo inaad future ahaan u isticmaalo presentiga ayuu ka saacidaya inaad isticmaasho. waana ku mahadsantiin la socodkiina la jaanqaadkiina. waxaan idinka tagay sidaa iyo amaana Allah isma dhaafno.